بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعنا وناكسن عقيارتو عن هودا كساحبنايو رمضان الكريم ميل والباء جوجتاني غور والباء وانا انيغو صاحبكي مصطفى محمد غلاسو سوشيال ميديا يوتيوب يا سيدو waxaana alaabana kuu soo gudbiyaa qodobada siyaasadda dalkeena hooyo kuwii aan isleeyahay way xiisa gelinayaan bulshada si aan u soo gaarsiino waxyaabaha aan idiin heynana waxaa ka mid ah maanta magaalada muqdisho waxaa lagu kala dhaariyay xildhibaanada lagu soo kala doortay Garbaharey iyo sidoo kale Ceelwaaq ee gobolka Gedo ku bedeli doona baarlamaanka golaha shacabka baaran iska soo horjeedo iyo guddoonka ku meel gaarka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo taliska amniga ee booliiska ku eedeeyay inay diideen doorasho degdeg ah ka dhacdo dalka Soomaaliya warbixin la xiriirtana waa idiin haynaa idiin soo baahin doonaa wasaaradda amniga wasiirkeeda oo ka hadlay hor istaagii maanta lagu hor istaagay xildhibaanada Ceelwaaq lagu soo doortay warbixin la xiriirtana waa idiin soo baahin doonaa sidoo kalena waxaa ka mid ah qodobada aan idiin haynana xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya oo ka hadlay weerarkii iyo sidoo kalena hor istaagii lagu sameeyay qodobadaasi iyo qodobo kale aan idiin qarneen anigoo Mustafa Maxamed Cali halkan kaaga soo jeedinayo balse adiga na daawan haddii taa booqashadeeda koowaad aan subscribe noo saarin fadlan calaamad guud subscribe ka taabo gambeelka furasi ama macaamiil joogto sidoo kale barteena Facebook follow wadana soo dheen fadlan follow na soo dheh si aan macaamiil joogto videoga like sar aragtidana comment noogu soo gudbi asxaabtaadana u sii share gareey mahadsanid waa tahay sida hordhacan ku daawateen isla markaasna qodobada aan idiin soo gudbinayna ku daawateen haddii aan guda galnana waa xildhibaanadii maanta lagu dhaariyay magaalada muqdisho isla markaasna 16 xildhibaan ee lagu soo doortay degmada Ceelwaaq ee ku matali doona baarlamaanka golaha shacabka federaalka Soomaaliya maamulka Jubbaland ee ka soo galay gobolkaasi Gedo balse dhaarintooda ayaa waxaa ka dhacday shaqaaqado isoo istaaga dhowr jeer ee ciidana maanta la rabay in lagu dhaariyo teendada Afisoni sidoo kalena la rabay in halkaasi dhaarinta ka dhacdo balse ciidamo halkaasi la geeyay oo hor istaag ku sameeyeen sidoo kalena ciidamada kale ee booliiska ayaa waxay diideen school police in lagu qabto halkaasi dhaarinta walo markii dambena goob kale la geeyay hotel si gaar ah loo leeyahay حقودر دمي waxaana dhaariyay gudoomiyaha ku meel gaarka baarlamaanka 11aad ee golihiisa shacabka ambassador Cabdisalaan Xaaji Axmed Dhabancad balse warbaahinta oo gudoomiyaha ku meel gaarka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Dhabancad oo la hadlo oo sheegay in ay jiraan caqabado lagu hor istaagayo doorashada in dalka lagu dejiyo asigoona farta ku fiiqay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaan si kasta yeelnay inaan dhaarino dadka oo qabanno meelo badan baan loo diiday booliiska diiday hotel baan nimid dad gaari leeyihiin markii tii dawladda midii biila Hargeysa waad maqasheen hoobiyana la dhacay waa u dulqaadanay intii dhamatay Allah u naxariisto inta bugta Allah u boogadhayo waxaa haddana habeenkii markaan galabti ka baxnay meesha loo yimid in qaboojiyihii haantii weyneyd la dalooliyo xabad lagala daalay ayagoo sidaa u kulul ayaan waxaan ku tashanay inaan dhammaystirno 18 musharax oo u sharaxnaa gudoomiyayaasha baarlamaanka iyo ku-xigeenadooda iyo kuwa ku sii xiga intaas waxaan ugu dayadoo kulul intaan shaararka la baxnay ayaanu meesha kuleelka ku samaynay waan aragnay inaan sii wadi karin waa ka soo baxnay waxaan isleeyahay teendada Afisoni nabadgelyo u doonano waana la kaga daba yimid taliyii booliiska yimid iyo ku-xigeenadiisii qaar ah waana la ka soo eriyay waana la diiday meel baan fariisanay annagoo la waajibaadkiina guta waa sugtoob weey ildiyo dhan baa la xiray hadda markii ugu dambeysay markaan meel nimid oo dadkii yimaadeen oo nidaamkii oo dhan la joojiyay waxaa dhacday xabad in hotelka ninkii lahaana Allah ka samaysiyo cidda u magi doonto ma aqaan inta la yimaado in xabad lagala daalo hotelka dhanka kalena waxaa Muqdisho ka dhacday
dhaarin loo sameeyey xubno Garbaharey lagu soo doortay 16 xubnood ee Villa Soomaaliya doorashada ay qabanqaabisay, waxaana isbarbar socda doorashooyinkaasi dhaarintooda. Wasiirka Amniga Xukuumadda Xilgaarsiinta Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Nuur oo maanta warbixin ka siiyay warbaahinta waxyaabaha hor istaaga ee ciidamada booliiska ay ku sameeyeen ayaa wuxuu sheegay in markuu maqlay arrintaasi oo ku baxay isla markaasina ciidamadii markuu la kulmay oo sheegeen in ay soo amray taliyaha ciidanka booliiska isla markaasina oo taliyihii uu la xiriiray, balse waxaa dhacday in uu sheegay in xijaar taliyaha ciidanka booliiska uu rabay in hor istaagaasi oo ololo gaar ah oo u waday oo ka biyadiiday, balse gudoomiyaha ku-meelgaarka baarlamaanka iyo anigana waxaan qaadanay go'aan kale oo ku aadan in aan lagu dayanin, sidaasi darteedna meel kale ay hoteelo ayaa u wareejinay. Waa kan wasiirka amniga xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ka warbixinaya. kolkaan gaara meesha waxaan la kulmay arrimo aan yara habboonayn oo ciidamo uu geeyey taliyaha ciidanka booliiska Jenaraal Xijaar oo u dhaqmaya yacni si aan sax ahayn oo aad moodo ciidamo uun ka shaqaynaya amaba yacni moodid maahan ciidamo loo geeyey arrimo siyaasadeed meesha. waxaan saraakiisha meesha joogta waxaan ku iriyaa idin yeeray marka yaa idinkaan halkan waxay ugu dhexeen Jenaraal Xijaar. waxaan ku helay meeshan shaqadiina ma ahan ordaya iska taga oo howlihiina qabsada. marka waxay dhaheen wasiir waa runtaa waa saxan tahay, balse waxaan keenay halkan oo aan ku nimid amarkiisa taliyaha ciidanka sigaan la xiriireynaa inaan amarka nafartan waan u sheegaynaa, waana kugu soo celcelinaynaa bis waayahay. kadib ugu soo celceliyana waxay ku dhaheen wasiir waxaan u yeernay taliyihii uuna imaan doona adiga guddoomiyahoodii in imaan doona. bis waa sugnay uu noo yimid taliya soo socda. adiga waxyaabaha qaarkood oo waxaa jira aanan hadda jeclayn inaan media la wadaago oo ku habboon in xafiisyada iyo nidaamka dawliga dhexdiisa lagu xalilo. marka wax badan aan isdhahnay, laakiin ugu dambeyntii hadalkiisa waxaa nooga muuqatay nin uun isagu siyaasad ka shaqaynayo dictate garaynayo dhahaya saana lama yeelayo sidaana waa la yeelayaa. markii dambe amaraan siiyo waxaan ku iri may waa amare arrinkaa fuli uu ka yara dhiga adeega amarkii inuu fuliyo. waxaa kaliya uu nala habboonaatay waxay noqotay intii ay ka dhici laheeday xoogaa waxaan habboonayn oo askartii iyo guddoonka dadkii la ballansanaa xildhibaanadii iyo wixii xoogaa buuqa dhici lahaa. waxay noola muuqatay ninku nin daana waa yahay, nin muddo soo shaqaynayana waa yahay, wuxuu ka shaqaynaya inay khaldan yihiin nin fahmi kara uu yahay, balse ay nooga muuqatay inuu u yara bareero khaladka inuu ka shaqeeyo. waxay noo muuqatay inaynan inaguna hadda khaladkiyo aynan ku indhaadeegin yacni in waxyaabaha uu ku talagalay inay dhacaan ee goobta ka dhacaan. go-aan waxaan ku gaarnay maadaama uu albaabadii xirtay oo uu leeyahay guddoomiye cid u imaan karta lama arko, cid u soo geli karta lama arko, uu ku yara madax adeegay. ibando aynan ahayn asiga mas-uuliyaddiisa meesha ammaankeeda iyo shaqada ka socotaba uuna wax shaqaa ku lahayn, laakiin ciidan uu u keenay inay ka shaqeeyaan siyaasadda oo meesha keensaday. go-aan waxaan ku gaarnay guddoomiyuhuna uu runtii nin odayahoo wax badan xeeriyu ahaaye lama ficiltamin. aniguna hadda dabcan kuma aana fikirin ninkan wasiirkiisa haddaa warkaaga mandiidi karee xoogaa kusii yara adkeeya. go-aanaan gaarnay xilli galabgaabana way ahayd afurku soo dhawaa. waxaan go-aan ku gaarnay inaan goob kala tagnoon howlihii guddoomiyaha u yiile iyo waxa uu guddoomiyaha kusii dhammaystirto. ugu dambeyntii dhanka kalena xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble qoraal ka soo baxay oo la soo dhigay barta Facebook ee xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa lagu sheegay in falkii rabay in lagu hor istaago dhaarinta xubnaha baarlamaanka 16 ee Elwaq lagu soo doortay inay tahay mid lagu carqaladeynayo geedi socodka hanaanka doorashada iyo sidoo kalena in la rabo in dib u dhac dalka foodo la geliyo ayaa lagu yiri. waxaana sidoo kale lagu cambaariyay falalka kale dhaarinta xubnihii Garbaharey lagu soo doortay. daafno iyo markale kulmi doonana waxaan leeyahay sidaas galiyo. Asalaamu calaykum wa rahmatullaahi tacaala wa barakaatuh.